Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taariikhda waxa soo maray askar fara badan oo lagu tilmaami jiray in ay saameyn ku yeesheen dagaaladii ay ka qayb galeen. Tusaale ahaan, askarta sida gaarka ah loogu tababaro shiishka iyo in ay si gaar ah u bartilmaameedsadaan ciidamada cadowga waxa ay reebi jireen taariikh iyo mahadhooyin weyn oo lagu xasuusto sooyaalkooda military. Haweeneyda lagu magacaabo Pavlichenko waxay ka mid ahayd askartii ciidamadii waddanka Ruushka ee loo yaqaanay askartii casayd ama Jeyshul Ahmar, kuwaasi oo saameyn weyn ku yeeshay taariikhna kaga tegay dagaalkii labaad ee dunida. Tani haddaba waa qiso ka mid ah qisooyinka lagu xasuusto dagaalkii labaad ee dunida. Waa haweeneydii shiishyahanka ahayd ee dishay in ka badan 300 oo askari oo Jarmal ah. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Waxa lagu naanaysaa oo loo yaqaan marwadii dhimashada. Waxa ay argagax gelisay qulubta askartii Jarmalka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka dhowr bilood gudahood, waxaana u suurta gashay in ay disho 309 askari oo ay iyadu qorigeeda ku dishay, maadaama ay ka mid ahayd ciidanka Ruushka ee shiishyahanada ah ee loo yaqaano sharpshooterska. Tirada intaasi la eg ee ay ku dishay dagaalkaasina uu keenay in ay kaalinta koobaad ka gasho sharpshooterska Ruushka abid taariikhdooda. Waa haweeneyda halgamaaga Sofiyeedka ah ee lagu magacaabo Lyudmila Pavlichenko. waa tuma haddaba Lyudmila Pavlichenko maxaase ku kalifay in ay ka qayb qaadato dagaalkii labaad ee adduunka? waan qormo aan ka soo xigarinay shabakadda arrimaha militariga iyo ciidamada ee dalka Ruushka, waxaanay ku bilaabaysaa mawduuceega sida tan. Lyudmila Pavlichenko waxay sanadkii 1916 ku dhalatay magaalada caanka ah ee Cherkov, oo ah magaalo weyn oo ku taala waddanka imika loo yaqaano Ukraine. gaar ahaan waxay dhinaca koonfureed kaga beegan tahay caasimadda Kiev ee dalka Ukraine, ahna magaalo ka mid ah kuwa waqtigan Ruushku duqeymaha culus ka geystay. Tan iyo yaraanteedii, Pavlichenko waxaa lagu tilmaami jiray gabadh yar oo adag oo geesiyad ah oo ka qayb qaadata hawlaha culus si la mid ah sida wiilasha. waxay sheegi jirtay inay ku raaxaysato guuldarrada cidda ka soo horjeeda, mar walbana ay jeceshahay inay guul ka gaadho hadba waxa ay qabanayso. iyada oo yar ayay ka mid noqotay ciidamada Ruushka. waxay ahayd gabadh hamisare leh, gaar ahaan waxay la tartami jirtay wiilasha dhigeeda ah si ay u caddayso in habluhu aanay iyaga ka duwanayn iyo in ay habluhu wax xoog badan yihiin haddii ay keenaan ka go'naansho. markii ay da'deedu ahayd 14 sano jir, Pavlichenko waxa ay u guurtay iyada iyo qoyskeeduba magaalada Kiev. halkaasna waxay kaga biirtay kulliyad dhinaca tababarka ciidamada ah oo ay ku qaadanaysay koorsiyada dhinaca shiishka iyo qori ridista. muddo dhowr sano ah oo ay halkaasi ku qaadanaysay tababarro military oo dhinaca dagaalka ah, gaar ahaanna loo tababaray inay ka mid noqoto guutooyinka loo yaqaano sharpshooterska ee dhinaca shiishka. waxay qaadatay shahaadadeedii ugu horreysay ee dhinaca militariga. waxa ay ka mid ahay 10 xubnood oo loo sii qaatay in ay yihiin kuwii ugu fiicnaa dhinaca shiishka, waxaana ku mutaysatay dadaalkeedaasi shahaado sharafeed lagu guddoonsiiyey duleedka magaalada Kiev, xarun ku taalay oo militarigu ay ku tababaran jireen. markii ay dhammaysatay tababaradii ciidamada militariga, waxa ay ka howlgashay oo ay shaqaale ka noqotay warshad hubka soo saarta oo ku taala duleedka magaalada Kiev, sida laga soo xigtay Madxafka Qaranka Mareykanka oo isagu warbixin ka diyaarin jiray waqtiyadaasi ciidamada Ruushka. sanadkii 1937 markii ay jirtay 21 sano, waxa ay jaamacadda Kiev ka bilowday barashada taariikhda iyada oo rajaynaysay in ay noqoto macallin, laakiin xiisaha ay u qabto inay ragga kula tartanto hawlahooda ayaa ku kalifay in ay ka qayb gasho tartamada dhinaca toogashada ee jaamacadda. waxa u dheer inay nafteeda ku xoojiso ku biirista, waxaanay qaadatay koorsooyin dheeraad ah oo la xidhiidha dagaalka iyo howlgelinta. ku biiritaankeedii ciidanka cas ama loo yaqaanay Red Army-ga waddanka Ruushka bishii Juun sanadkii 1941, hogaamiyihii Naaziga ee Jarmalka Adolf Hitler waxa uu bilaabay howlgalkii loo yaqaanay Barbarossa. waa howlgalkii ciidamada Jarmalka ee midaysnaa ee loo yaqaanay Wehrmacht ay ku galeen deegaankaasi. waxay bilaabeen in ay ku duulaan dhul fara badan oo u lahaa midowga Sofiyeeti. haweeneyda Pavlichenko waxay markaas ahayd 24 sano jir, waxaana ku jirtay sanadkii afraad ee waxbarashadii dheeraadka ahayd ee takhasuska dhinaca militariga, gaar ahaan toogashada ama dhugmada tooska ah. laakiin isla markii ay ogaatay duulaankii uu soo qaaday Naazigii Jarmalku, waxa ay si degdeg ah u tagtay xafiis la iska diiwaangelinayay oo ku yaalay magaalada Odessa ee isla waddanka Ukraine oo waqtigaasi ahaa dhulweynihii Sofiyeedka. Pavlichenko waxay halkaasi ugu tagtay saraakiil Russian ah oo diiwaangelinayay askartii loo qaadanayay dagaalkaasi lagaga hortagi lahaa Naaziga Jarmalka.
saraakiishaasi waxa ay aqbaleen markiiba codsigii ay soo gudbisay haweenaydan da'da yarayd ee lagu magacaabi jiray Pavlichenko, waxaana markii hore loo qaatay in ay kaaliye caafimaad ka noqoto guutooyinka dagaal geli doona, balse iyadu waxay doonaysay mar walba oo ka go'nayd in ay safka hore ka gasho furinta dagaalka. waxa ay ku beertay ciidamadii lugta ee Soofiyeedka, iyada oo sheegtay inay u adkaysanayso wax kasta oo ay u adkaystaan ciidamadaasi lugta ee Soofiyeedku ama ciidankaasi casa. maalin maalmaha ka mid ah Pavlichenko waxa ay awooday in ay muujiso awoodeedii dhinaca tababarka ee ay ku qaadatay toogmada tooska ah kadib markii dagaal gaadma ah oo ay soo qaadeen ciidamo sahan ah oo Jarmal ahi ay Soofiyeedka meel u galeen, halkaasi oo ay ciidamada Soofiyeedku iska difaaceen. waxa u suurta gashay haweenaydan in ay 2 askari ka disho naazigii Jarmalka, waxaana halkaas ay ku mutaysatay ammaan fara badan oo ay ka heshay saraakiishii hogaaminayay ciidamada cas. waxa ay maalintaasi soo bandhigtay xirfadeedii dagaalka, waxa ay ku beertay qaybta 25aad ee ciidamada cas ee Ruushka, qaybtaasi 25aad oo si gaar ah ugu xil saarnayd toogashada ciidamada ka soo horjeeday ee cadawga. waxa ay ka mid noqotay 2,000 oo askari oo shiishiyahano Soofiyeed ah oo ka qayb galay dagaalkaasi labaad ee adduunka, kuwaasi oo ay ugu dambeyn markii dagaalkaasi dhamaaday ay ka badbaadeen 500 oo kaliya ah, 1,500 oo kalena ay halkaasi ku dhinteen. 500 ee shiishiyahanada Raashiyaanka ah ee badbaaday ayay gabadhani ka mid noqotay. guulihii haddaba Pavlichenko ay ka gaadhay dagaalkii Odessa iyo dhiirigelintii ay heshay. Pavlichenko dagaaladii waaweynaa ee ay ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa dagaal ay guradda isgeliyeen ciidamadii Raashiyaanka ee casaa iyo Naaziyiintii Jarmalku. dagaalkaasi oo muddo 2 bilood ah ka socday duleedka magaalada Odessa. muddadaasi 2 bilood ahayd ee ay dagaalkaasi ka qayb galisay Pavlichenko waxa ay dishay 187 askari oo ka tirsan Naaziyiintii Jarmalka iyo xulafadooda, kuwaasi oo ahaa gaar ahaan ciidamadii Romania iyo Talyaaniga. si ay u xaqiijiso waxa ay doonaysay inay ka gaadho, waxa ay dishay tiro badan oo askar ah oo ciidamadii ka soo horjeeday ahaa muddo gaaban gudaheed, waxaana taasi u keentay in ay ka dallacdo darajadii waqtigaasi ay haysatay oo ay noqoto sarkaal sare oo ciidamada Raashiyaanka ka tirsan, gaar ahaan guutooyinka loo yaqaano sharpshooteriska. inkasta oo ay Pavlichenko iyo ciidamadeedu waqtigaasi askar badan ka laayeen ciidamadii Naaziyiinta Jarmalka, haddana Jarmalkii iyo xulafadiisii Romania iyo Talyaanigu waxa ay la wareegeen gacan ku hayntii magaalada Odessa oo ay ka qabsadeen ciidamadii Ruushka. tani waxa ay ka dhigtay Pavlichenko iyo cutubkeedii ay ka tirsanayd ee ciidamada Ruushku in ay u guuraan dhinaca iyo magaalada Sevastopol si ay halkaasi uga galaan difaac. Pavlichenko waxa ay ka mid ahayd askartii mitidka ahayd ee halkaasi ku dagaalantay ee ka hortagtay Jarmalka, gaar ahaan inkasta oo lagu go'doomiyey Sevastopol muddo 8 bilood ah, haddana dagaal fudud kama aanay qaadin. dagaalkaasi oo ah mid aad u culus waxa uu sababay khasaare xoogan oo ka mid ah khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi labaad ee dunida, mid ka mid ah kuwii ugu xumaa. dagaalkaas ba'an ee faraha la isula tegay, Pavlichenko waxay ku guulaysatay inay kor u qaado tirada la xaqiijiyey ee askarta ay dishay, taasi oo ay ka dhigtay 257, iyada oo mar kale kasbatay dallacsiin dhinaca darajada ciidamada ah. toogashadan ay samaysay ee ay ku laysay askarta ka soo horjeeday ee cadawga uu ahaa, tiradoodana ay gaadhsiisay 257 askari, waxa ay keentay in ay ku mutaysato darajo sare oo dhinaca ciidamada ah, gaar ahaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada sharpshooteriska ama toogashada fiican. tirada intan leeg ee ay dishay haweenaydan Raashiyaanka ahi uma u suurtagelin qorigii fiicnaa ee waqtigaasi casriga ahaa ee ay ku dagaalamaysay, balse taasi waxa u dheeraa xirfadda ay ka kasbatay dhinaca toogashada ee ay muddo badan tababarka ku soo qaadanaysay, iyo sidoo kale geesinimadii ay muujisay ee dhinaca hawlgalka dagaalka. dhufaysyada ay gasho, sida ay u shiishaysa askarta ka soo horjeeda, iyo goobaha ay rasaasta kaga dhufanaysay ayaa waxay noqdeen arrimo lagu barto taariikhda, gaar ahaan ilaa imikana askarta Raashiyaanka looga sheekeeyo qisada haweenaydaasi, gaar ahaan dhalinyarada jecel inay noqdaan sharpshooters ama kuwa toogashada fiican. Pavlichenko waxaa la sheegaa inay ku guulaysatay 36 dagaal oo ay la gashay ciidamadii Jarmalka, oo ku jiro mid socday 3 maalmood oo isku xiga iyo 3doodii habeen. ciidanka Jarmalku waxay isku dayeen in ay laaluushaan Pavlichenko bishii Juun sanadkii 1942 intii lagu jiray dagaalkii loo yaqaanay Sevastopol. Pavlichenko waxaa lagu dhaawacay dagaaladaasi markii Firid Hoobiye uu kaga dhacay wajigeeda. ka hor inta aan Pavlichenko si buuxda uga soo kaban dhaawaceeda, taliska sare ee Soofiyeedka ayaa ka soo saaray dagaalka awaamiir kale oo ku aadan ilaalinta sharpshooteriska
si ay iyaga ugu suurto gasho in ay askar badan laayaan, isagoo u arkay in ay aad u qiimo badan tahay dagaalkana ay saamayn badan ku yeesheen. meel u dhow magaalada Kiev oo ay difaaca ka galeen ciidamada waddanka Ruushku duulaankii ay soo qaadeen Jarmalku, waxa ay noqotay dagaalkii ugu dambeeyay ee ay ka qayb gasho haweeneyda lagu magacaabo Pavlichenko, waxaanay halkaasi tiradii askarta ay leysay ku gaadhsiisay 309 askari oo la xaqiijiyay in ay iyadu gacanteeda ku dishay. ciidanka Jarmalku xataa si fiican ay u garanayeen haweeneydan, maxaa yeelay muddadii dheereed ee ay dagaaladan ka qayb galayeen mar walba magaceeda waa ay ka warhayeen iyo sida ay u dagaalamaysay. marar badan waxay isku dayeen dagaalka oo socda in ay fariimo codbaahiyaala ugu baaqaan in ay haweeneydaasi isku soo dhiibto ciidamada Jarmalka, balse haweeneydii marnaba ma aanay aqbalin dalabaadkaasi. xataa waxaa dhacday mar in idaacadaha ay ka hadleen saraakiisha sarsare ee ciidamada Naaziyiinta Jarmalku iyaga oo ugu baaqiyay haweeneydan in ay isa soo dhiibto, balse dagaalka oo socday darteed haweeneydani kuma aanay dhiirin inay isdhiibto ilaa ay ka badbaaday ugu dambayn gabagabadii dagaalkii labaad ee adduunka. maalin maalmaha ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamadii Naaziyiinta oo laga wareysanayay idaacadda Jarmalka waxa uu yidhi, Ludmila Pavlichenko waa inaad noo timaadaa, waxaanu ku siin doonaa shukulaato macaan oo badan, waxaanad ka raysan doontaa qabowga, goobaha dhiiqada ah ee dagaalka iyo xaaladaha culus ee daranyada leh ee dagaalka. waxa aad noqon doontaa marwo darajo sare ka qabata Jarmalka. sidaas ayuu kula kaftamay haweeneydan isagoo fariin u marinayay idaacadda. markii ay haddaba saraakiisha Naaziyiintu ka qoosteen inay haweeneydani si ugu soo gudubto ciidamada Naaziyiinta, waxay bilaabeen in ay waraaqahan jabaad ah ku daadiyaan dhammaan deegaamadii ay ka socdeen dagaaladu si fariimahaasi ay u gaadhaan Pavlichenko. fariimaha ciidamada Naaziyiintu ay daadinayeen waxay ahayd hanjabaad ah in ay sumayn doonaan ama ay dili doonaan mar kasta oo ay arkaan. mid ka mid ah waraaqaha taariikhda galay ee loogu soo hanjabay haweeneydan waxay ahayd warqad uu soo qoray taliyihii ciidamada Naaziyiinta ee ku soo duulay Yurubta Bari, kaasi oo warqadan ugu hanjabay sidan: haddii aanu ku qabanno waxaanu kuu jeexjeexi doonaa 309 gobol oo jidhkaaga ka mid ah, waxaanu ku raacin doonaa dabaysha, ugu dambayn waa inaad isa soo dhiibtaa, haddii kale waa lagu dili doonaa marka lagu qabto. waraaqahaasi oo ay haddaba mar dambe ka jawaabtay Pavlichenko waxay tidhi, sida lagu qoray diiwaanka taariikhdii dagaalkii labaad ee dunida, hadal ay tidhi oo ahaa sidan: markii aan maqlay hanjabaadda Jarmalka waxaan is idhi malaha way samayn karaan, haddana niyadda waxaan iska idhi adiga oo dagaal ku jira oo dhinta ayaa ka sharaf badan intii ay ku qaban lahaayeen. taasi ayaa keentay inaan mar walba dagaalka si geesinimo leh uga qayb galo. ugu dambayna dagaalkaasi waa uu dhammaaday iyaga oo aanay qaban. markii aan maqlay hanjabaadaha xidhiidhka ah ee ay ii soo dirayaan waxaan is idhi waxaan aad ugu farxay in aan maqlo in cadowgu uu si fiican u garanayo rikoodhkayga aan dhigay ee ku saabsan tirada ugu badan ee aan ka dilay ciidamadii Naaziyiintii Jarmalka. sidaas ayay tidhi Pavlichenko oo mar laga wareysanayay telefishin ku yaala dalka Mareykanka ka hor intii aanay dhiman.